الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد إلى باكم هاتسان نقل الإسلام بعد السلام وحان جعل استيئنا سوق بي ولا لها مسلمين تام أريني رودتك بني آدم كيساق قلدون تهي أما يساق دحدر صن تهي حنونا ذا رباني قاء إلهي سبحانه وتعالى أدونك يسكو امتحانه يحنون ذا الشياطين تا اسكول لمانينا يا بني آدم كو حنون عادي يساق ديقيان أيامات بني آدم كي كلا قران لايه لا لذلك وحان يعني قوان صدي وانشعل يستين ولا لا مسلمين تا أسوق بيو حنون ذا الشياطين تا يددك اسكول لمانيان وددك أمالين أيان حنون ذا عادي قاء si dadka uga taxadaraan ilaa ay 30 qodob ayaa idin soo gudbinaya insha Allah taala calaamaadkaas qofka isku arka klibkan hore ma ahay klibka labaad yaani qaybtiisa dambe ayaa waxyaabaha ugu badbaadi lahayd ku tilmaamaya awalan qofka bini aadamka in uu jinka uu ku jiro waxa ku garanaysaa qofka waxa haya xanuun ama waa bukaan haddii goro qof buka ama xanuunsan xanuunkaasna uusan macnaha uu yahay mid yaani dhaqaatiirta yaani aysan tilmaamin isagana si jismiyan u dareemayo qodobka labaad waxa weeyaan qofka oo hurdada iska waayo waa yaani waxa ay ku magacaabaan culimada yaani al-ariq haddaad hurdada iska weyso xitaa haddaad yaani marar qaarkood waxa dhici kara in yaani haddaad kaniiniyo iyo waxyaabaha lagu hurdaad isticmaasho inaad gami weydo taana waa min calaamaad qofka inuu jirkiisa shaytaan uu ku jira ama jin uu dhibayo calaamad saddexaad waxa weeyaan qofka oo mar walba murugaysan ama isku buuqsan xagga maskax ahaan ama maskaxiyan haddana wuxuu ku murugaysan yahay ama uu ku buuqsan yahay ama stresska ku haya ma tilmaami karo ma garanayo taana waa calaamad jinka dadku ugu dhibo masalada afraad waxa weeyaan qofku inuu jin ku jiraad ku garanaysa ama calaamadaha kamid ah qofka oo riyada ixtilaamka la yiraahdo ay aad ugu badantay habeen walba uu isku janaabaya qofkaas habeen walba isku janaabaya rag iyo dumar ku ahaadaba waa calaamad kamid ah calaamadaha shaytaanka inuu qofku ku jiro oo dhibayo raqamka shanaad waxa weeyaan qofka oo habeenkii markuu jiifo qayliya ama soo salala ama uu yahay qof markaasi dubaab ku kacsan Soomaalidu waxay aaminsan tahay qofka qaadka cuna in marka habeenkii soo salalo oo marka uu qayliyo waxa la leeyahay dubaab baa ku jira war dubaab ma waa jin qofka dhibaya ta awgeedana qofka jin baa ku jira qodobka lixaad waxa weeyaan qofka hadii goor ku riyooda ama riyoonaya riyooyin argagax iyo cabsi badan sida isagoo buuro laga soo tuurayo isagoo meelo dabaqyo laga soo lalaadinayo isagoo biyo lagu maasheenayo isagoo yaani la imaada la ceejinayo dhulka lagu nabayo waxyaabahaas kol qofka hadii isagana ku soo lalaabtaan ku riyoodaayo jin baa dhibayo jirkiisa ku jira qodobka toddobaad waxa weeyaan qofka oo had iyo goorba riyooyin ku riyoonaya riyadaas oo ah xayawaan dadcuna had iyo goor waxa uu imaanaya habeen walba ku riyoonaya xayawaan dadcuna sida shabeelkii libaaxiya iyo yaani waxa xayawaanad dadcunka ah ayuu ku riyoonaya isaga eriyanayo oo dhibayo isagana ka sii ordayo kana jin baa dhibaya oo ku jira qodobka sideedaad waxa weeyaan qofka oo habeenkii iska soo fadhiista iskana daldalma soo fadhiisanaya uu iska hadlaya uu iska daldalmaya kadib wardiisu ku noqonaya maba uu ogaba subax marka loo sheego filka sameysay lagu yiraahdana wuxuu dhaayaan filka ma sameeyno qofkaana jin baa ku jira qodobka sagaalaad waxa weeyaan qofka oo markaasi isagoo macna hurda iska soo kaca oo ilbaabku iska furo iska dhaqaajiyo laba xaaladood xaaladii hore waxay ahayd inuu soo fadhiisto iska daldalmaya oo ku laabanaya waa jin waxa dhibaya qofna waaba ka sii ziyaadsan yahay oo soo kici ilbaabka oo iska furo dhaqaajinaya magaalada bartanka Soomaaliya soo tabaya ama xusuusanaya kaana jin baa bixinaya oo ka saaraya aqalka ama daartiisa qodobka 10aad waxa weeyaan qofka oo isagoo hurda iska qoslaya ama iska muusoonaya wuu iska qoslaya wuu muusoonaya wuu jiifaa ama wuu oynayaayo ooyin cilkaambin buu oynayaa isagoo sida uu oynaya hadana yaani waxa weeyaan ma oga wuxuu oynayo inuu ooyay ama inuu qoslayaba kana jin baa ku jira qodobka 11aad waxa weeyaan qofka isagoo iska fadhiya iska oynaya taa waxay ahayd xilli hurdo ku jiray tan dambana waxa qofki isagoo markaas yaani waxa weeyaan iska fadhiyo ayuu oynaya ilmadii ooyinta ma cishan karo haddana ooyinta sida macluumka la garanayo isha jeexeeda halka bay ka soo daadataa ay ka soo baxdaa qofka jinka ku jira ee fadhiya waxa lagu garanayaa
inay ilmadiisu kasoo daadato jeexa halkan dhafoorka jeexiisa halkaa inay kasoo daadato haddii ilintiis kasoo daadato isagoo fadhiya qofkaa jin baa ku jira. qodobka 12aad waxaa weeyaan qofka oo mar walba ku riyooda isagoo meel dhiig badan daadsan yihiin dhex mushaaxaya ama dhex socda maantoona dhiigunbuu ka tatalaabsanaa ama dhiigunbuu dhex socdaa qofkaana jin baa ku jira. qodobka 13aad waxaa weeyaan qofka oo ku riyoodo dad amarnaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضبك يعني قيبتيسي لبات يعني دوبيا بإذن الله وحينو مريي قفك يعني قضبك سدحي طبنات قفك إنو كل رياضة السقو معناه أركي رياضة دحديدة دد آدو داردير أما دد آدو قاقابا وحتى يعني أبوركو ذا حتى أولي يابو أما آدو قاقابين بين آدم انتو قابين أما آدو ودريريهين dadka macnaa waxaa weeyaan uu arkaya dheeraantooda si cajiibana baa ilaahay subxaana watacaala u abuuray hadduu noocyadaasoo kale ku riyooda isaguna waxaa weeyaan waa yacni jin dhibaya. qodobka 14aad waxaa weeyaan qofka ku riyoonaya ama arkaya wax madmadow uusan suuraddooda sifay karin ama uusan tilmaami karin dhan wax madow baa dulboodaya ama dhibaya oo ceejinaya ku ciyaaraya haddana ma sifay kara sifadoodii. 15 waxaa weeyaan qodobka 16aad aan idhaahday waa qofka oo yani meel baa xanuunaysa wax kastoo kaarjabin ama xanuun baabi'iyo idilna oo uu isticmaalay xanuunkiisa marnaba ka baabi'i maayo. dhakhaatiirta markuu taga dawooyin usoo qoraan dawooyinka uu isticmaalo waxba ka tari maayaan mid kale uu tegi waxba ka tari maayaan kaana shaytaan baa dhibayo aad u dhibaya. waxaa kaloo ka mid ah qodobka yani 17aad qofka oo ku riyooda ama arkaya dad jirkooda qeybaha sare uusan waxba saarnayn uu qaawan yahay qeybaha hoosena waxba ay saarnayn uu qaawan yahay xagga cawrada keliya mara iyo deed ay u saaran tahay hadduu qofku waxyaaba kale ku riyoodo jin baa ku jira. qodobka 18aad waxaa weeyaan qofka oo madax xanuun zaa'id ah uu ku dhaco مثلا مدح ولا مدح حنونة أما قيب كم إذا حنونيسا أما حاجة كرتة حنونيسا أما دفرك نعان كلا حنونيسا لين عصنا وحكست وسمية حنون كماشة وبرد بالعمل وبدقنانية هدي أي جرتنا تا وحاول يقفك إنه مركا وجين وكجرو هذا دوي دي سنتسي توصل لجاها يا تراننا ما وشيء كرو على مدها كلو حكم إذا قفك وجعل هذا قولي جوجا كليجي إنه جوجو كليجي معنا وحاويان وهذا مد إسك جوجو إسك داوضة وحول بابا كهدو قولي جعلك وجعل هذا dadka ila joogoodan uu necbaysto uu karahsanayana qofka jin baa ku jira. qaybta kale waxaa weeyaan qofka oo lagu kari waayo gurigiisa inuu deganaado uu ku sugnaado mar walba ka soo cararayo markuu shakhsi yahay qofkaana jin baa ku jira. qofka kalena waxaa weeyaan gabadhii baa waxaa lagu kari waayey ninkiina waxaa lagu kari waayey naagtiisa inuu la joogo labadood mid kale ka didayaa haddii arrinka ay dhacdana fal sixir wuu sababi karaa laakiin asalka jin baa waayeel ahoo يعني لبضة كلا دينايو كلا إريا. قدبك كويلاتناد وحويان قفك أو ونيه سآد وجرعمو الصجو حنون سنين أما وح يعني حنون علق أو ونها كل عوسن قبين ونيه سآد وجرعما يعني جيم باكوجرا. قفك أو مركا وحكم إذا وجركيس الصجو نخيبة كم إذا دباحين يا أما جريرية. هذا إسكت جو جركا غيبة كم إذا دي دباحيسو أما أي جريرتو وح حقيقة إنه مركاسي وجين جركا وكوجرا. قدبك لو كحيج وحويان قفك مركز صار أهل خير أها أو معاصدة لجعليسية أهل خير وهذاك وكل حمو قدنا أهل خيرها أصقفك معاصدة ديكور كل حجر بعد أركيسا قفك أنا جنبا كشرا قضبك كلو حويان قفك إلا والشاب بدن لي ماذا هالمام حدافة ولي ماذا هذا قفك سيه المام زائد وصنعاد الله إنه لي ماذا جنبا كشرا قضبك كلا وحويان قفك أو أهنجري قف عبادة بدن وآد عبادة الله وجود ذلك جري وعبادتي إلهي سيكسيك النقضي وأمرنا بقوا عبادة أن لو أركينين كان يسقون سعد وجن ولا قوني نقضي قضبك اللحية لواتنا وحويان قفك أهري وأها قف نظافة بدن وآد اللبس بدن وآد يعني وحاول سن نظامية حدنا قفكي أو نقض قفك تقعد يشدي قبيسي إذا رزق بدلدي كتجا أو يسقون هيرو جاري لا اسكو قرمايو قفك سنايتشي باكوجرا وحكوا لكم إذا qofka oo habeenka markuu jiifo ilkaha qariida ama ilkaha isku ruuga sidii isagu wax ruugaya ama calaalinayo kale hadii taa uu sameeyo laba xaalad ay culimadu kala qaadayaan waxay leeyihiin qofka marka hore hal la geeyo isbitaal hal la baara calooshiisa inuu goorayaan ku jira hadii laga helo uu sababi karaa ilkaha qariidadooda ilma yar baana inta badan ku dhacda hadii laakiin uu markuu isbitaalka la geeyo laga waayo goorayaan qofkaasi jin weeyaan waxa markaasi sababteedu ilkaha uu qariidanayo
qodobka sidalaatanaad waxa weeyaan qofka habeenkii markii macnaa uu seexan kari waayo ilaa uu iftiin ku seexdo mooyaane inuu nal iyo iftiin ku seexdo mooyaane mugdi habeen marnaba gami maayo waa uu cabsi daa'im buu ku taagaya qofkaana jimba wehelinayo irsanaya qodobka labaad sagaalaad waxa weeyaan qofka oo hadii goor caadeysta inuu ku cuno gacanta bidixda iyadoo sharciga uu baneeyay gacanta midigta lagu cuno haduu caadeysta gacanta bidixna goor ku cuno markii loo sheego uu ku madax adeegayo qofka jimba ku jira qofka sodonaad waxa weeyaan qof hadii goorba fahmadiisa ay culus tahay fahmada aad u cuslaatay culayska fahmada ay culus tahay qofkaasi inuu ku soo laabato isagoo awalkiisa hore fahmadiisa ay fiicneed ama mid fahmada marka culaysku bilaabanaysa ahaadee qofkaana jimba ku jira inkastoo culimada ay leeyihiin qofkaasi qalbiga ka cuslaada oo xagga fahamka hala toobo sodonka qodob baa u muhiimsan qodobo badan oo bini aadamkina la kulmaan laga yaabaa adu wax walba oo aad marka istiraahdo waxa weeyaan yani diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala nasaax ee kaaga tahay adu ahaantaada laakiin yani dhaqaatiir xaqooda waxa way kaaga qalbi kari waayeen ogow jimba sababku aho xaaladahan soo socdo ayaa aduguna marka ay noqonaysaa inaad isugu daaweyso adigoo markaas waxa weeyaan kaga faa'iideysanayo ilaahay diintiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qodobkiisi saddexaad waxaana markaan ku tilmaami doonaa biidnillahi albaari waxyaabaha aan soo sheegay arimaha ku saabsan cid la kulanta waxyaabaha uga badbaadi lahaa haduu sameeyo ilaahay u dhawaanshaha wa awalan hadaad rabto cadowgaad inaad ka guulaysato oo wax walbana gundi kaaga ah inaad la timaado cabsida ilaahay oo dhab oo xaqiiqo ah marka la timaado cabsida ilaahay xaq oo xaqiiqo ah adii jinkaasi kala teed baad helaysaan waa ina cabsida ilaahay laga helaa oo dhab ah ومسألة اللباد إلهي جنكا كاغا بدبادينا waxaa kamid ah inaad salaada shanteedii waqti aad masaajidka ku laazinto ama masaajidka aad ku daa'into hatta ragta hayada dumar aad tahayna shanta waqti marka masaajidka lagu jiro adigu ina shanta waqti guriga aad ku tukatay qodobka saddexaad waxa weeyaan ina mar walba aad aqriso aayatul kursiga iyo muaawadateynka bacda kulli salaad walba gadaasheeda aayatul kursiga aad aqriso iyo muaawadateynka تحسينات كأفراد وحويان إن قرآن كأقرصه أو نعادة كدقته قرآن أقرص إن العادة كدقته نوش هذا أيا جنك إلهي مانع كاغدي كرا قضبك إشانات وحويان إن سد حديم مع الموضبة قريقا سورة البقرة أتكو أقرصه أو كتاب كات كأقرصه حدانا قرنينا ماذا أبودي كرنا عجلات كشد إلا يكون دماتا سدح مع الموض كدبا وحويان وإن أتكو أقرصه أما أتكو شدا قضبك لحد وحويان إن الله صاحب تدتك ونواناكسن أهل خيرك علماء إيدتك ونواناكسن أهل الدعوة إن هذه قور قف لازم هذا هاتو وحسابك ونقولنا شيادين تا يعني وحاويان كاسي معناها أردان ويكوسو دوان كريم قضب كاتو ضباد وحاويان إن مالينك ويران لبا أما سدح ساعدات وقرآنك إلهي أتكالفرتو وهذا قرسو ويران مالك أفرلات الساعدات سدح إلا بس ساعدات إن إلهي قرآنك يساعدو الفرس قضب كسيدات وحاويان صلاة الصبح إي صلاة المغرب قداشيدا ولا بضا وقتي الشياطين تبين آدم قريود قصو أردان قصو فوفاني إن الأقرصو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو أد أقرصو بقول قر تانا مانع بيكون نقول إنه الشياطين تيسكسو هويسنين قضب يعني وحاويان سقالات وحاويان إن حد يقر أتهي قف ويسقو رقدات هاي دمر هدات هاي inaad mar walba aad weyse qabto waxyaabaha u diidi kara shayaadiinta inaysan jirkaaga marnaba aysan soo gelin qodobka yani waxa weeyaan tobanaad waxa weeyaan ina hadii goor badiso xusuusashada geerida xusuusashadeed inaad badiso wax walba aad sameyso oo geerida aad ku xusuusanaysid waxa ka sii fogaanaya shayaadiinta inaysan qalbigaaga jirkaaga ku soo dhiiranin yani qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan inaad badiso salliga nabiga calayhi as-salaatu was-salaam إن النبي صلى الله عليه وسلم أبديسو ووحيابها